haddii lagu dhahay Englishka muddo 6 bilood ayaad ku baran kartaa janarkii ku soo biir haddii lagu dhahay Englishka waxaad ku baran kartaa muddo 3 bilood janarkii ku soo biir ani maanta ku midlihi waxaan ku leeyahay Englishka looma barto muddadaas kooban waxaa laga rabaa inaad joogtayso maalin walba aad joogtayso si aad ku barleed luqadda yani jumlado badan aad dhisto hadallo badan aad isku dayso different kinds of books aad akhriso si markaa aad u barato ama aad aad raadsato channel oo lagu barto Englishka ama macallin fiican aad raadsato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ma tahay dadka danaynaya inay bartaan luqadda Ingiriiska haddii ay tahay jawaabtaada haa fadlan muuqaalkan ila dhammayso channelka dad ku cusub tahayna subscribe saaro horaan haddii la joogteena muuqaaladan si share garay insha Allah si asxaabo badan ay u soo biiraan channelkan insha Allah. waxaan ku hayaa barnaamij oo inta badan ay soo dhigaan oo ah luqadda Ingiriiska waxaad ku baran kartaa muddo 3 bilood ah 4 bilood ah ama 6 bilood ama sanad ay tahay in ay tahay mid been ah wala qaaliya muddadaas lagu sheegay waa been hadduu Ilaahay ku qadaro mooyaane kuma baran kartid muddo 3 bilood ah ama muddo 2 bilood ama 6 bilood ah English laguma barto. Englishku markii la baranayo wuxuu u baahan yahay juhdi wuxuu u baahan yahay waqti in la siiyo wuxuu u baahan yahay rafaad in loo maro si aad u noqoto marka qof luqadiisi ay tahay advance. marka haddii lagu dhahay Englishka muddo 6 bilood ayaad ku baran kartaa janarkii ku soo biir haddii lagu dhahay Englishka waxaad ku baran kartaa muddo 3 bilood janarkii ku soo biir ani maanta ku midlihi waxaan ku leeyahay Englishka looma barto muddadaas kooban waxaa loo bartaa inaad waqti aad geliso yani muddo badan aad ku celceliso. so waxaan ku sheegi doonaa insha Allah qodobo aad ku baran karto muddada aad ku dhex jirto luqadda Ingiriiska fadlan muuqaalkan iga fogeey haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah. qofka doonayo inuu barto luqadda waxaa looga baahan yahay number 1 inuu lahaado consistency. when you have a consistency waxa cajiib ah ama waxa suurtagal noqonaysa inaad luqadani si fiican aad u barato oo aad noqoto qof maasha Allah runtii ah oo luqadda meel walba joogo ku hadli karo. consistency markaan leenahay waxaa laga rabaa inaad joogtayso maalin walba aad joogtayso si aad ku barleed luqadda yani jumlado badan aad dhisto hadallo badan aad isku dayso different kinds of books aad akhriso si markaa aad u barato ama aad aad raadsato channel oo lagu barto Englishka ama macallin fiican aad raadsato luqadda Ingiriiska. tan labaad waa inaad samaysataa daily habit caadi maalmeed waa maalin walbo ka dhigo dhaqan ka dhigo horta luqadda Ingiriiska. in the way of talking marka hadlayso try to talk marka sameynayso activities try to use English isticmaal English isticmaal do more conversations wala sheekaysi badan samee asxaabada la sheekayso join groups oo lagu barto luqadda Ingiriiska samayso marka timetable samayso oo aad tiraahdo si marka aad u noqoto qof mabalasa. sidoo kale tan kaleeto waxaa waaye hard working dhammaantoodaba waxay hoos tagayaan hard work sababta loo leeyahay waxaa waaye dadaal badan aad bixiso in aad oo jiifto waxay kugu soo digo anoo iska socdaan baranaya ma jiraan iskuul aadaya waxna ma akhrinayo waxna ma qoraayo ma jiraan waa inaad practicing badan aad samaysaa. go to school learn very well iskoolka aad si fiican wax soo baro macallimiintaada dhegeyso waqti geli the little thing aad soo baratay waqti geli ku qoro meel fiican ku qoro guri marka ay imaato timetable samayso then si aad marka u muraajiciso inta soo baratay ama ustaadka ku soo baray si aad u muraajiciso.
waayo haddii yani revision badan aad samayso haddii maanta aad soo faa'iido ama aad soo barato 5 eray kaliya aad soo barato that 5 words meel ayaad ku qoranaysaa then you read waxaad iska saxaysaa pronunciation-kooda iska saxaysaa waxaad iska saxaysaa macnahooda iska saxaysaa kadib you just try to construct sentences waxaad isku dayaysaa marka inaad jumlada dhisto then the more mar waliba aad sidaas u samaynayso oo jumlad badan aad u dhisayso waqti aad u gelinayso at the end of the time or at the end of the day waxaad arkaysaa adoo meeshaan joogin oo aad noqotay marka qof oo hadli kara oo bulshada xageli kara yani markii oo message ama warqado arko uu akhrin karo ayaad noqonaysaa marka yani sidaas ayaa loogu bartaa Englishka waxaan idin ka codsanayaa inaad waqti aad gelisiin sidii aad ku baran lahayd marka luqadan waayo sababta mar waliba lagu leeyahay luqada Ingiriiska baro dana this language waxaad ku apply garan kartaa shaqo marka codsanayso waa luqada kaliya waa loo apply gareeyo internationally ayada marka waxa ka codsanay the system of teaching marka ku dhex jirtana waa luqada essential ka waaye oo yani asaasiga oo wax loo barto in any country wadamada inta badan luqada Ingiriiska isticmaalaan si yani manhajkooda ay ugu baxaan marka it is very important marka aad ay muhiim tahay in adigana aad juhdi aad geliso marka sidaad ku baran lahayd marka try to learn try to hard work try to put your effort on learning this language inshallah at the end of the day you will see marka waxaad arki doontaa adoo tahay marka qof in advance way so channelkan waxaad keli kartaa beginner hadaad tahay waad keli kartaa sidoo kale hadaad tahay intermediate dad waad keli kartaa pre-intermediate dad waad keli kartaa grammar course hadaad rabtana channelkani waad keli kartaa so intaas ayaan kugu dhiirigelinayaa channelkana inshallah haddii hore aan joogtay like inshallah thank you very much